lacagtani waa lacagta dollarka ee aynu dhammaanteen naqaano. Hadda waxaa lagu tiriyaa inay tahay lacagta lagu adeegsiga badan yahay uguna saamaynta badan, laakiin adduunku wuxuu isku diyaarinayaa curashada lacag cusub oo la saadaalinayo inay booska ka saari doonto lacagta dollarka ah, lacag ay garwadeen ka yihiin shantan hogaamiye ee ka muuqda sawirkan oo kala hogaaminaya kala bar dadyowga adduunka ku nool. waxaynu u jeednaa madaxda Ruushka, Shiinaha, Hindiya, Brazil iyo South Africa. Isbahaysigan oo ahaa mid bilihii u dambeeyey hurdada u diiday reer galbeedka, Maraykankuna uu dhegta u taagayo tallaabooyinka xiga ee ay soo wadaan, ayaa maalmo uun ka hor ku dhawaaqay in dalal cusub oo ay ugu horeeyaan Sacuudiga, Masar iyo Itoobiya ay ku biireen. waxaynu u jeednaa isbahaysiga loo soo gaabiyo BRICS ee wacadka ku maray yagleelidda dhaqaale cusub oo ka madax bannaan gacan ku haynta reer galbeedka. muuqaalkeenna maanta ayaynu ku eegi doonnaa waxa uu yahay isbahaysigan, goorta uu samaysmay, iyo sidoo kale goorta la filayo inay sameeyaan lacagtooda cusub. bishii 6 sannadkii 2009 ayaa magaalada Yekaterinburg ee dalka Ruushka waxaa ka qabsoomay kalfadhi aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen dalalka Brazil, Ruushka, Hindiya iyo Shiinaha. waxay shirkan ku yeegleeleen isbahaysi dhaqaale oo xambaarsan sumadda ama magaca BRIC. yoolkiisa ayay ku sheegeen in dalalkan oo ahaa dalal uu dhaqaalahoodu soo kobcayo ay gacmaha isku qabsadaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen dhaqaalaha gacanta ugu jira dalalka reer galbeedka oo keliya. sannadkii 2010 waxaa gadaal kaga soo biirtay South Africa. magacii isbahaysigana waxaa lagu sameeyey isbeddel kooban oo waxaa lagu daray xarafka S isaga oo noqday BRICS. magacan ayaa loo soo gaabiyaa xarfaha ugu horeeya ee dalalka ku jira isbahaysigan oo kala ah Brazil, Ruushka, Hindiya, China iyo South Africa. tan iyo markii uu burburay midowgii Soofiyeetka, dhaqaalaha adduunka ayaa ahaa mid gacanta ugu jira 7 dal oo la isku yiraahdo G7 oo kala ah dalalka Canada, Faransiiska, Jabaan, Jarmalka, Ingiriiska, Talyaaniga iyo dalka Maraykanka. isbahaysiga dalalkan ayaa bilowday markiisii ugu horeysay sannadkii 1973 xilligaasi oo ay wasiiradii maaliyadda ee dalalkan wada yeesheen kalfadhigoodii ugu horeeyey, waxaana isugu yeeray oo gadaal ka riixayay isbahaysigan wasiirkii maaliyadda Maraykanka ee la oran jiray George Shultz. waxaana laga bilaabo xilligaasi ay noqdeen 7 dal kuwa si joogto ah sannad kasta ay madaxdoodu shirweyne isugu yimaadaan, waxaana shirkaasi lagu jaangooyaa siyaasadda dhaqaale, maaliyadeed, amni iyo maalgashi. waxaana go'aamada dalalkan ay gaaraan ay saameyn ku yeeshaan dhaqaalaha adduunka oo dhan. lacagta dollarka oo ah lacagta Maraykankana waxay dalalkani sabab weyn u noqdeen inay noqoto lacagta ugu badan ee adduunku uu wax ku kala iibsado, iyaga oo keli ku ahaa jihaynta iyo jaangoynta dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka nusqarnigii ugu dambeeyey. isbahaysigan cusub ee BRICS ayaa yoolka ugu weyn ee loo yagleelay uu yahay in meesha laga saaro in dhaqaalaha adduunku uu u afduubnaado 7 dal, taa beddelkeedana la helo dhaqaale xor ah oo dal kasta uu lacagtiisa gaarka ah uu dal kale wax uga soo iibsan karo, isagoona u baahan inuu adeegsado dollarka Maraykanka. sidoo kale waxay ku heshiiyeen yagleelidda bangi maalgashi oo ay u soo gaabiyeen NDB, xaruntiisuna tahay magaalada Shanghai ee dhacda dalka Shiinaha. yoolkuna waa inuu la tartamo bangiga adduunka iyo sanduuqa IMF, sidoo kalena uu noqdo mid lagu garab istaago kobaca dhaqaale ee ka socda dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga BRICS. sidoo kalena lagu hortago in dalalkan lagu hanjabo mustaqbalka cunaqabatayno dhaqaale. dalalka ku jira isbahaysigan ayaa dadkooda lagu qiyaasaa inay yihiin ku dhowaad 40% dadyowga adduunka ku nool. dhaqaalahoodana waxaa lagu qiyaasaa 25% ganacsiga guud ee dalalka adduunku isweydaarsadaan. waxaana yoolku yahay in sannadka 2050 uu dhaqaalaha dalalkan iyo dalalka gadaal kaga soo biiraba uu noqon doono mid la tartama dhaqaalaha reer galbeedka. sannadkan 2023 waxaa dhacday arrin filan waa ku noqotay dalalka la isku yiraahdo G7 oo ku aadanayd in dhaqaalaha dalalkan uu ka hoos maray markii ugu horeysay taariikhda dhaqaalihii ay sameeyeen dalalka ku bahaysan BRICS. dhowr sababood oo isbiirsaday oo ay ugu horeeyaan dagaaladii Ukraine oo ka dhigay dalalkii Yurub sannadkan kuwo wajaha dhaqaale la'aan xooggan ayaa keentay in dalalka G7
dhaqaalahoodu sannadkan uu gaaro 30%, halka dhaqaalaha dalalka la isku yidhaahdo BRICS uu gaaray 31%, taasi oo yididiilo ku sii beertay isbahaysigan. 22 ilaa 24 bishan aynu ku jirno waxaa kalfadhi ku yeeshay dalka South Africa madaxda dalalka BRICS. tallaabada ugu weyn ee ay isla meeldhigeen ayaa ahayd in la ballaariyo golaha laguna soo daro dalal cusub. shirkaasi ayaa lagu go'aamiyey xubinnimada 6 dal oo cusub oo ku biiraya BRICS. dalalkan ayaa kala ah dalka Sacuudiga, Imaaraadka, Masar, Itoobiya, Iiraan iyo Argentiin. dalalkan cusub ee ku soo biiray isbahaysigan ayaa ah badankood dalal miisaan dhaqaale ku leh saaxadda dhaqaale ee caalamka. marka laga yimaado in dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Iiraan ay yihiin dalal leh keedad shidaal oo xooggan, haddana dalka Imaaraadka ayaa leh sanduuq maalgashi oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay sanduuqyada ugu xooggan caalamka. sanduuqan oo ku jira kaalinta 4 kala saraynta sanduuqyada maalgashi ee caalamka ayuu Imaaraadku ku sameeyey maalgashiyo lagu qiyaaso ku dhowaad 853 bilyan oo dollar, halka Sacuudiguna uu sidaasi oo kale leeyahay sanduuqa 6aad ee ugu xooggan sanduuqyada maalgashi ee caalamka. Itoobiya iyo Argentiin ayaa iyagana lagu xushay maadaama dalalkooda ay ceegaagaan macdano iyo kheyraad aan weli laga faa'iidaysan. dalalkan ayaa si rasmi ah ugu biiraya isbahaysigan sannadka 2024, waxaana la diraasaynayaa in sidoo kale la sameeyo lacag u gaar ah dalalka BRICS oo ay isku dhaafsadaan ganacsiyada dhex maraya. haddaba ma laga yaabaa in nidaamkan cusub uu meesha ka saaro nidaamka dhaqaale ee uu hadda adduunku ku taagan yahay? dalalka G7kuna garwadeenka ka yihiin ma la heli doonaa dhaqaale xor ah oo ka madax bannaan doolarka, dal walbana uu si xor ah dalalka kale wax uga soo iibsan karo lacagtiisa? nagu reeb daawade jawaabtaada ku aadan su'aalahan qaybta hoose ee komentiyada.